أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الأعظم في أرضه القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي في الله، عشر كأن مانتا وعشر كأن اللبات درسوا مانتا وكأن اللبات كتاب كي الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه كسب سنة kitaabkiisii zuhdiga iyo tasawufka iyo imaamku wixii uu kala kulmay qolyihii cadow ahaa ee reer bani umayye uu kaga hadlayay weeyo. darsigeeni labaad shalay waxaan ka soo waranay wax yar imaamka taariikhdiisa oo kooban iyo kitaabkiisa baxarka uu ku iman hayay iyo waxaan u malayn saddex bayd oo u horeeyay inahaasan ka soo hadalay. darsigeena labaad maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa biidin illaahi albaari imaamka taariikhdiisa oo aan waxoogaa ka hadallo way inoo socon doontaa oo mar walba kitaabka iyo taariikhda imaamku way isdhex socon doonaan biidin illaahi albaari. taariikhda imaamkuna sida aan ka hadli doonnaba waxay inoo noqon doontaa in yar oo aan badnayn oo muujiz ah ayaan ka dhigi doonaa. walow alimaam zayn alcaabidiin cali ibn alxuseyn haddii la yidhaahdo taariikhdiisa ha laga hadlo aynan ku soo koomaynin bilo oo waqti aad u dheer ay u baahan tahay. shalay darsigeenni wuxuu inoo joogay laa tanharanna gariiban xaala gurbatihi الدهر ينهره بالذل والمحن. شيخ وحور لا تنهرن هقول غريبا مد غريبة هقول حال غربته بحر كوحين النري وبحر البسيط وحونا كوي من هيا بين النري مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل sidii sabab baxarkuna wax walba oo lagu dhawaaqo waa la qoraa, wax walba oo aan lagu dhawaaqin lama qoro. sidii sabab fannigan curuudka qoraalkiisa kitaabadiisa ayaa nooca iyada ah. kayfiye marka loo qoro ayuu isagu leeyahay oo uga duwan carabiga kale sida loo qoro curuudku uu leeyahay. qofka marka fannigan isaga maahirka ku noqday ama aqoonta badan u yeeshay fannigan isaga ah markuu arka beydka halkaaba ku qoranba markiiba wuxuu ku dhawaaqayaa qofka isaga ah oo uu ku hadlayaa kitaabadiisa carabiga ah. markuu arko kayfiyada curuudka maaha iyo carabigu way kala gedisan yihiin. markii uu arko markaaba wuxuu qofka isaga ku dhawaaqayaa uu garanhayaa beydka isaga ee meesha ku qoran baxriga uu yahay buu garanhayaa oo qofku uu ku dhawaaqayaa. ama ma aha qofku haduusan wali maahir ku noqonin calaamado lagu aqoonsado ayaa jiro. calaamooyinka isaga waa fatxooyin iyo reebitaan, taasuu marka ku aqoonsanaya oo ku garanaya intuu ku sameeyay isaga gacantiisa oo uu ku hoos qoro ayaa waxa u soo baxaya kayfiyadii oo ugu dhawaaqi lahaa. waasa iyada لا تنهرنها قولقول بور غريبا مد غريبة قولقول حال غربته غربتي سحالة ذا قولقول الدهر زبن كأي ينهره قولقولها يقف كأيسقه بالذل ذل النمك قولقولها يو إيا والمحن شداء قولقولها يا سفري أنيق سفر كيجو بعيد كيف قويه شيخ وحي إلى أنيق سفر كيجو آدي آدب أفق يهي وزاد دي أنيق زاد كيجا كيت كأن هيستو أما زاد كأن هيستنا لن يبلغني إمجار سين هيو لن يبلغني وزادي أنيق زاد كيغانا لن يبلغني إما قارسين هيو مال إما قارسين هيو وقوتي أنيق قوة إذا ضعفت ويلي إذا تاء هوس بيقول عضي والموت قيردين يطلبني ويطل بيسا سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني وحور شيخ سفري أنيق سفر كيغا بعيد آدي آدب أفق يهي وزادي أنيق زاد كيغانا لن يبلغني ميل إما قارسين هيو ميل إما قارسين هيو وولي تاب أدبو يراضي وقوتي أنيق قوة يدون ضعفت وي هوس سيساء هوس بيقول عضي والموت قيردنا يطلبني ويطل بيسابوني ولي وحائي هذا أنو بقايا ذنوب ذنبيال باقي وطيائي هذا ذنبيال باقي أيان لا هي ولي وحاويان باقي لست أعلمها من أوجي ذنبياشا إيادا هلكا وحكاga عدان هيو إمامكو إنو أها إمام معصومة وإلهي إلالي جل جلاله وعظم سلطانه ولا إله غيره أو وحول بأو حمانة وكإلالي جبي أهام با إنو إلهي اسمديسي أي قد القطن ستي إسايا دوشي سايا هلكا كفهميسا ولي وحائي هذا يبوري ببغايا ذنوب ذنبيال باقي أيائي هذا
ولست أعلمها أنا وآمنا أجين تائيدا ذنب باقي أبان لا هي تائيدا وحل هذا dadka ahlullaahiga ayaa waxa lagu yaqaanaa shakawada in ay iska sheekay inay iska ambiyada ilaahay iyo a'immatu ahli albayt ba dhaqankooda iyo caadadooda waxay tahay mar waliba inay iyagu iska sheegtaan oo ilaahay ay u sheegtaan inay yihiin adoonkiisi ama adoomadiisi inay yihiin oo mar waliba u baahan ilaahay jalla jalaaluhu wuxuu yiri Allahu ilaahay ayaa a'lamuha ayaa ya'lamuha og taa'iyada ilaahay ayaa og في السر وحي قرصون يا والعلن وحي مغضبة إلهي بقول لكن أنو ما بقرنا يوله لكن إني أندبي على باقي عن الله أيان دريمة هي بقول إمام المفيد ومن أئمة أهل البيت كم ذا أئمة أهل البيت كوحة وأئمة الدين أئمة الدين مراجع علم الله ونقضاء ومن أئمة أهل البيت كم معها الأئمة الاثنى عشرية وإمام عجيبها ووحوي أن تصانيف آذو بدنا لها وحور كتاب كيس إرشاد كل يراهدو أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أيا ولي وحو أغدغي نينكي لديه جري حريث بن جابر أيا وحو أغدغي دينعا إيا مشرق رح كسوبح أيا وحو أغدغي والي أيو أغدغي ودمداسي إيران إيا دينعا إيا ذا وحو مركاسي أصو دري أو أصو هدييي لبا قبضود أو دلي بقركي لديه جري يزدجرت أيا مركيا لبا قبضود أو دلي أيا وحو أصو دري دينعا أميركا labada gabdhood ee uu dhalay boqorka la yiraahdo Yazdajrat ibn Shahrayar wuxuu u soo diray Amirul Mu'minin labadii gabdhood midood wuxuu u guuriyay Imam al-Husayn oo wiilkii Amirul Mu'minin al-Imam Ali ibn Abi Talib oo Zaynul Abidin kan dhalay ayuu labadii gabdhood midkood u guuriyay wuxuuna Ilaahay ka siiyay oo ay u dhashay Zaynul Abidin Ali ibn al-Husayn salawatullahi wa salaamuhu alayhi فماتت في نفاسها نفاس كيدنا way u dhimatay oo ilmihii markay dhashay wiilkiiba way geeriyootay gabadha iyada mid kalena gabadhi kalena wuxuu u gooriyay ninkii la dhihi jiray Muhammad ibn Abi Bakr oo waxa weeye Muhammad kani wuxuu ahaa khulaski Amirul Mu'minin al-Imam Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salaamuhu alayhi ayuu ahaa fawaladat lahu waxayna u dhashay ninkii la dhihi jiray Al-Qasim ayay u dhashay fahuma labada iyaga oo Qasim iyo ninka loo yaqaan Zaynul Abidin Ali ibn al-Husayn salawatullahi wa salaamuhu alayhi Qasim iyo wiilka loo yaqaan al-Imam Zaynul Abidin Ali ibn al-Husayn wa ibna khalatin wayan waxa weeyo laba ilmood oo laba gabdhood oo walaala ay kala dhaleen weey labada iyada ah Zaynul Abidin Ali ibn al-Husayn wuxuu xaadiray waqcadii cajiibka ahayd ee aabihi Imam al-Husayn salawatullahi wa salaamuhu alayhi iyo aalkii Rasuulullaahi Muhammad lagu gumaaday ee qoladii waxa weeyaan mufsidiinta hay reer Bani Umayya ay ku gumaadeen ayuu xaadiray waxaynu sheegnay inuu marad ahaa oo la qabtay isagii iyo eedadii iyo dad fara badan oo kale oo waxa weeyaan imaamka taageerayaashiisii iyo ciyaalkiisii wixii baaqiga ka ahaa in gacanta lagu dhigay oo la qafaashay markuu sida ahaa arintu ay sida tahay imaamku waxa la horgeeyay ninkii la dhihi jiray Ubaydullah bin Ziyad oo Kuufa xukumay ayaa loo geeyay majliskiisi ayaa wuxuu ka sii daayay muhaadara aad iyo aad cajiib u qabto ama khudbad cajiib qabto ayuu ka jeediyay oo uu sheegay qoladan iyaga ah iyo mafaasidooda inta ay dhan tahay iyo sidii ay u laayeen awlaadi Rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam marka iyada waxa tahdiiday oo goodi iyo dil ugu goodiyay ninkii la dhihi jiray Ubaydullah bin Ziyad ayaa wuxuu ugu goodiyay dil in uu dilahayo Zaynul Abidin Ali ibn al-Husayn kabacdi imaamka iyo dadkii la socdayba waa la sii qaaday waxaana iyaga oo waliba lagu daba wado ama iyagaba intii loo dhiibay ay xambaarsan yihiin madaxii Imam al-Husayn oo sibd Rasuulillahi al-A'zam aha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oo nabiyullaahi Muhammad uu yiri Husaynun minni wa ana min Husayn isaguna aabihi kabacdi waxa la geeyay Dimashq iyo meeshii uu fadhiyay Yazid ibn Muawiya halkaana wuxuu ka jeediyay muhaadaro iyo khudab aad iyo aad u kulul oo waxa weeyaan dadkii meesha joogtay qulubtooda dhinaca kale u gadisay imaamku marka wuxuu yiri ma ahlama Allah ilaahi maxaa ka dulqaad badan ilaahi maxaa ka dulqaad badan عني أنيقا أؤيد القاته أنيقا حقيقة إلهي محاكا قد القات بدن بوليهي حيث ميلو أهملني إلهي سبحانه وتعالى أؤيك هذه أؤيكرتي والحال قد تماديت أن أنونا مركا إيادا كم مدح عضيقي في ذنبي أنيقا ذنبي أو يسترني أنو أو أسترها وحويو أردت إيادا أوليهي والحال قد تماديت في ذنبي ويسترني وحويو سيدا يضبع أنبياء إلهي جل أنبياء إلهي عليهم السلام وحا دأبقو دا يدقن كوضعه
أعداد إلهي حتى هدي أي جعنت أجلان أما أي قبطان أما دبعت إن لو جيسته وحلا يدا هذا التورية أي سمين جرين أم سيدا النبي جينا بكو أركجرني عليه الصلاة والسلام وآله سيدا أنكو أركجرني وحي سمين جرين تورية إمامكم مركا أرند حلقة وحكاجم وقت إنه سن سمين وح تورية أو إمام وحويا مجلس كي يزيد بن معاوية يا وحويا مجلس كي عبد الله نك لديه جرو عبيد الله بن زياد بقى أوسن وحبا قرنين بقى وح يجا يكسر جنيهين يا حمانته ما دام يجوا مركا مدله هين كفرجي إلحاد كأي ست توس يجوا أمة لهين أمير كإسلام كأوحى ويان زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه الله جماعي بركة يدا إسجى أهل كيسي إلهي باكر جاي ودور شرباني وتكويني وإلهي أبي أهيده يسوون أمة لهيو أمير كي مسلمين ما دام أوصعين هيو أمدني إن لجسوا عليو جعنتي حق أهيد ربط أهيد رسول الله محمد وجد صلى الله عليه وآله وسلم ما أحلم الله إلهي ما حكت القاد بدن عني أنا حقي حيث ماله أهملني كرتي والحال قد تماديت أنكم مدحت كاذيب له في ذنبي أنا ذنبي أو يسترني أنا أو أسترها يبا هدنا إلهي جل وعلا تمر ساعات أيامي وحا مر يسجر إمامكم أما مر يسو أنا ساعة هيجا معناها وحويان مال مهودي أيا إمر هيود أنا تمر ساعات أيامي مال مهيجا ساعة هودي أيا إمر هيود بلا ندم قوم ملأم بإمر هيان ولا بكاء أهن لأم بإمر هيان ولا خوف عبس الآن بإمر هيان إيو ولا حزن حزن الآن أي إمر هيان بوليهي وحدوكتهين قلنا ريب بني أمية إيو رسول الله محمد ولي قد وحا كدحي عدوت النماء أنقو إنبا يا كدحيسي إمام ويرو من أئمة أهل السنة والجماعة يا قصيدة ديسي وحا كمد أهيت فابن حرب للمصطفى وابن هند لعلي وللحسين يزيد وحول فابن حرب للمصطفى نينكي لديه جري أبي سفيان بن حرب وحي عدوت النمدي أي كنت أجنيد مر ولباء وكم مدحت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل هندل لديه جري ويل كذي وحوي معاوية بن أبي سفيان وإسقوا لنا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أيو يسوون كتاجنا وحوي يزيد أو أصير لمعاوية بن أبي سفيان وحو هذا النك الدلي كقيب قاتي دلكي إمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مركا ولي يود بأسردني نوع أي هيدا وصدا يدا أي كتاجناين قوسك رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمر ساعات أيامي وها إمرها يوري الساعة هيجا مال مهودي أي أنيجا إمرها يوري بلا ندم وحين يقوم مرهيان قوم ملآن ندم الآن أي يقوم مرهيان ولا خوف الآن بيقوم مرهيان ولا بكاء بيقوم مرهيان أوهن الآن إيا ولا خوف إيا ولا حزن أنا أنو الذي كيبان هاي بوري أغلق الأبواب الباب ذا حديبان هاي مجتهدا حالا هي كي كد دالها على المعاصي ده كد دالها وحوري أميركو أنا أنوغو إمامكو أنا أنوغو الذي كيبان هيبو يري أغلق الأبواب الباب ذا هوستا كحدي مجتهدا حالا هي كي كددالها على المعاصي كددالها وعين الله إيش إلهنا تنظرني أي كورينيسو أميركو إمامكو وحدوكت هي إنه إلهي إلهي جل وعلا أرنتن إيادا أمريكا وحي كدق أنت وسدا إيادا أولي هي وندم بهالكا كم موقضو oo kan daamoon hayo in uu isagu kaligiiba adduunyadan uu sidan ugu sii baaqi ahaado oo uu jeclaa inuu shahiido amaamka ama horta aabihi inuu ku shahiido inuu jeclaa ayaa halka kaaga muuqato markaas wuxuu leeyahay ana anigu alladii kiibanahay uqliqul abwaaba albaabada hoosta ka xidhay ayaan ahay buuri mujtahidan xaalaan ahay kii ku dadaalahayo ala macaasi ku dadaalahayo wa aynullahi ish ilaahina tanduruni ay fiirinayso oo aniga ay sida ay fiirinayso ilaahay uu eegahay jalla wa ala درسينا ما أنت بإذن الله الباري هلك أيضا أيو إنه جوجها يا كأن سدحات بان إن شاء الله وقتي لو إنه بالله دونه وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين.